وما استطاع وحكويتين دكتور عبد القادر هذا وحكويتين له سؤال عذر كدوديها oo runtii faraba aan ku hayo dadka Soomaaliyeed degan waddanka Soomaaliya jooga iyo geeska Afrika ba jooga cudurkaas kaduudiyaha dad farada hadda ka sheeganay xilligan sababaha ku imaada iyo waxa keena iyo waxyaalaha loo goortay kara inuu sheegtid cudurka kaduudiyaha kusoo dhawo okay walaalkay cudurkaas horta waddanka aad ugu badan yahay waa arkay sax daa'im waaya laakiin cudurkaas horta cudur la isqaasiye ma aha oo qofka uu ka qaadaya ma aha oo u gudbinaya oo lisuma gudbiyo waxa qofka uu gudbaa ma aha laakiin wuxuu ka bilowdaa lugtuu ka soo bilowdaa maaso oo kale ku dhici ka kacaysa kadib ilaa korkii dhan jajabaya markaas wuxuu noqonayaa qandha qabanayso hada daawo ma daawo male daawo malaha daawo loogu tirigalay oo loo soo saaray ma ay jirto daawo ma ay jirto waa sidii karoonihii camal waay karoonihii daawo muu lahay laakiin tilaal wuu jiraa oo la tilaali karaa qofka tilaal wuu qaadan karaa laakiin waa maxay waay cudurkaas daawo ma daawo ma laha laakiin qofka uu ku dhaca oo kala jir xanuun badan oo ku reebaya hadduu week am kala week haduu hayo oo ku daa qofka kala week amal oo haynaya maalinteeda kale uu ka soo roonaan maalinta ku dhacay maalinta labaad maalinta saddexaad qandadiisa si noqonaysa wixii ka sii dambeeya qandada badneed way ka soo jabaysaa haduu ay kaniiniga am kala paracetamol amal uu iska cuni karaa oo qandhi jibi ah loo cuni karaa laakiin daawo kale cirbad kale oo loo qaadanayo mala cirbad haduu isku durana naftiisa halis ay gelaysaa qofkaas uu dhimanayaa dad fara badan oo waxa aragnay cirbado qaatay oo u geeriyooday ayaan aragnay ama u dhintay marka taasta ka hor idana ha cirbad looguma tirigalan ninkii cirbad isku qaata ama wax isku qaata asaa naftiisa halis geliyay caalamkan meel looga soo saaray ama kala ma ay jirto laakiin qandhadaas waa qandho fara badan oo qofka ku qabanaya madax xanuun badan oo leeyahay jirka dhana ku jabaya qandhadaas saaidka ah oo madaxa ku xanuunaya aad dadka ayaga kala ah dad oo iska celi karna jira markuu ku dhacay ogaalka ka tagay oo ogaalkoodayba baxaya jiro oo u nugula jiro jismi ahaan iyo dad oo markuu ku dhacana oo iska noqonaya wax yar laba maalmood haduu joogaan saddexaad baad iska noqonaya kaas difaac jirkiisa adag si waxa ugu sii daran dadka balwada leh ama kala sigaarka caba ama kala jaaska cuno balwadaha isticmaala ama kala qamriga noqoto ama kala wax kasta noqoto drugs isticmaala ugu nugul yahay heer wuxuu noqonayaa dadka ilowshin ku keeno ama kala markaas oo dhaca waxba kala xasuuso waa madaxii zaid oo noqdo sidii bi'at malaria oo kala madax ugu dhufanaya laakiin daawo malaha ninkii uu ku dhaca ha cuno paracetamolkaas iska cuno biyo yaro qabow ana ku qabaysto jirkiisa zaid u karkaraya hada biyo qabow inuu ku qabaysto maalintii iyo kaniiniga paracetamolka inuu laakiin daawo loo soo saaray ma jirto daawo badan hada isku dirtid ama kala cirbad qaadatid naftaada halis ay gelaysaa marka kaduudiyaha saas waaye laakiin waxa keenay markii baaritaan aan sameynay oo wax kasta raadinay cudurkan intuu ka imaaday soo imaaday baaritaan aan sameynay Soomaaliya inta aan joogay oo dadkeen aad ay ugu bateen baaritaanka waxa noo soo baxay badda sun lagu shubay sumikii soo baxeen oo dadka bulshada hawadii sida ay ku qabsatay bulshada sida ay ku qaateen ayay noo soo baxday wadan oo caalam ah ma kala ka imaaday ama kala cudur kale oo caadi ah oo ka imaaday ma uu weheenin oo adduunka dhan oo saameeyay ma uu weheenin laakiin wuxuu u badan yahay Afrika u wada badan yahay laakiin dadkeena waxaan ogaanay wixii ka horeysay cid qabtay male laakiin wixii 92 burburkii kadib lee cudurkan uu soo baxay waddanka Soomaaliya aad ugu batay laakiin kasii hormaan qaba jirin ma arki jirin دكتور وحكيني ها بدي الصمن لو بوحي وحياه لو شوي يا كيني يا كيني هاتي عيان مرة أنا وحمر جو كل وقرتنا مليسانيا بدي ودنبا waxay soo tuftay xumbuyn caadi ay soo tuftay dad badan gacmaha inay ku taabteen haatee oo ay xumbada la yaabanaan markii saan ay ugu taabtay jirkooda energy ka kacay gacmihii ka go'ayaan aragnay marka dambe wixii in sun ay jiinaan ogaanay laga fogaadaan dhahnay dadka kulay marta marahta ma aan arkay
laba su'aalood oo ku saabsan arrintaas ayaan ku weydiinayaa. Kow waxaa weeye dadka ku dabaalanaya xeebaha ku dabaalanaya iyagu inta badan halkaas joogo dhibaatadaasi ma uga digteen? Kow tan labaad qofka cudurkan ku dhacay ma qasab waa inuu magaalada uu joogo ka baxo magaalo kale inuu aado ma qasab ah? walaalkay cudurkan dhibaato uu leeyahay male wax la iska qaadaa ma aha qofka kale uu gudbinaa ma aha laakiin qofku wuu ku dhacaa hadduu kugu dhaca wax waa lagula cuni karaa wax waa lagula cabi karaa biyahaada cabtidaan cabi karaa wax oo saameyn ugu yeelanaya iisoo gudbinaysa oo aan kaa qaadaya ma aha laakiin jismi ahaan waxaan hawada keenaysa hawadiiyo sumaysan oo kale hawadiiya wasaqaysan qofka wuu ku dhacay laakiin dadkii ayagaa kala roon oo difaacooda kala adag hadda difaaca jirkooda kala adag hadda dadna way u nugul yihiin difaacooda zaa'ideen ama kala cudurro kale ay qabeen ama kala xanuuno kale ay qabeen ama kala balooda iska lahaayeen wixii ma u adkaysan karaan hergabaad hadduu ku dhacata ma u adkaysan karo qofkaas oo kale hadda bahalkan bahal la iska qaada maaha walaalkay laakiin dadku wuu ku dhacaa oo magaalada muqdisho ayaan waxaan arkayay soomaaliya ilaa geges ilaa baadiye inuu gaaray oo dad badan oo lala soo carara abalaasal ugu soo qaada la keena war dadka biyo qabow ku shubo kaniinaan hala siiyo oo qandajibi ah la daawo kale loo baahan oo cirbad lagu duray ma jiro walaalkay cagaarshow oo kale cirbaduu leeyahay tiifowga oo kale cirbaduu leeyahay waxyaabahaas kale malaariyada oo kale kaniini cirbad loo qaadanaha jirto cirbado kuwaas waa loo soo saaray iyo daawooyin way leeyihiin laakiin kadudoogan wax daawo oo la yiraahdo aniga ilaa la'aankan meel aan ku arkay ama kale meel loogu soo saarin weli ma aan arkin walaalkay waa mahadsantahay.